السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ سلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتي أنا قالقة ستهين في عنتهين من نبض خبتين إلهي إذن كيسو ويدي رجينا ملك سعودونك كجوكتان سعود دواذا خير إيا فرحات لسعود دواذا وما موانو إيا مركله welcome دمانتين ستهين في عنتين من نبض خبتين إنا إذي كوسو عليان جعلهاي ماذا ما عن لسعود مقلينين إلهان كرجينينا inaad nabad qabtid anigana alxamdulilah waa fiicanahay allah noo siyaadiya khayrka soo dhawaada welcome dabiib iyo dadaal ku soo dhawaada iyo danta inoo qaaska ah welcome kulligiin insha allahu khayr xogaa yaro arrimaan rabaa inaan idinkala sheekaysto saaxiibada igu xiranoo soo dhawaada dhammaantiin waa mahadsantihiin mar walba masajyaan helaa mar walba qof cusubaa isbaranaa maasha allah allaha nala garab galo waxaan qabano kheyr allaha ka dhigo dhammaanteen barnaamijkan waa yara special waa waxyaabo waxaa looga hadlaa qofka u khaasa ama uu qofku ka hadlaa ama uu qofku jeclaystaa inuu ama aniga iga garabsado ama annaga dhan aan iska garabsano marka saaxiibtinimadana waa qaali allaha noo barakeeyo aamiin yaa rabbi qofkii nagu cusub oo hadda soo galay khadkow soo dhawo welcome insha allahu khayr haddaad horey noola joogto oo saaxiibada ka mid aheedne kheyr allah ku siiyo weligaa dadaal dulqaado ilaahay bari amuurta kheyr allaha ka dhigo aniga maamuwaano waay markaan soo gala qadka waxaan jeclaa inaan idin salaamo ilaahay idin baryo ilaahay aan wada barino dabadeedna barnaamijka aan idin daadaheeyo sanado badan oo socdaa barnaamijka dabiib iyo dadaal kheyr allah idin siiyo waxyaraan ugu soo kordhooyo dhibna ma jiro waa kheyr dadka aan la shaqeeyo qaaska aan ula shaqeeyo ee inta iiga xiran meelo kale iiga xirnaan rabaa insha allah xilliga hadda taagan inaan wax yar idiin sheego waa la guuraha idin dhahay ayaan dhaweedaa idiin sheegay channelka kale maamuwaane iyo saaxiibada qaaliga idinkaga sheegay maanta waa 7 bisha June 2020 so ilaa iyo 20ga guuroobaa socdo marka waa idinkaasa soo dhawaada kheyr iyo farxad la soo dhawaada waa dadka qaas ahaan barnaamijka caafimaadka ku xiran ama loo daadaheeyo aniguna aan qaas ahaan ula shaqeeyo qof aanan la shaqeynin ma raraayo marka dadweyne badan waxaan arkaa Soomaaliyeed oo ii saaxiiba oo channelada saaxiib leh amaba loo tuuray videoga qof walba oo u diray oo dhahay anigana irar ama dadka aad kaxeynayso meesha private-ka aad geynaysid igu dar marka dadka oo dhan ma wada baxayaan dadka lala shaqeeyay qaas ahaan 2020 lala shaqeeyay basaa baxaayo marka ayaga program private loo bilaabay oo ah waxyaabo cuntooyina in luuqa loo dhigo ama talooyin talawaati ilaahay intana waxay noqotay in loo soo guuro channelkan dabiib iyo dadaal insha allah la fariisto barnaamijyaduna ay ka baxaan hadba sidii waqti loo helo soo dhawow kheyr iyo farxad la soo dhawaada dhammaantiin nin raga haddaa tahay qof dumar haddaa tahay halkaanaan wada fadhinaayo imow buuggaaga iyo qalinkaagana hayso waa intaasoo waxtar leh inta laga faa'iideeyo adigana aad doonataa ilaahayna daawo kuugu daraa ama cuntooyinkaaga aad ka mid dhigtaa hadday tahay wax la cuno waa hadday tahay wax la marsadana baro qoro wixii kheyr la allahna sii aamiin yaa rabbi ani maamuwaano wax badanaa idinkugu jawaabaa ama idinkaga jawaabaa wax kheyr la allah ii soo dhiibo waxaa idinka raaligelinaa walaalaha aan dhahay waa idiin jawaabaa isuga ee fadhiya haddii aan isweyne waayahan programka la dhaho ama groupka la dhaho waa idiin soo jawaabaa ilaahay idinkiisa wax yar iyo adkaysta ama ii dulqaata insha allah halkaa fadhina hadda waa dabiib iyo dadaal waa barnaamijka private-ka oo walaalaha kala shaqeeyo walaalaha isdabiibaayo insha allahu kheyr ama isla dadaalayo ama isla tacaalayo soo barnaamijkaas ayuu daba socdaa programkan ama si boodo ii soo dhawow kheyr iyo farxad soo dhawow meel walba adduunka ka joogtid waxaan jeclahay insha allah inaan kuu sheego waxyaabaha la isku dabiibo jirka wax u roon haddaa caafimaad qabto iyo haddaa wax tabanaysaba soo adiguna inaad barato ood nagala wareegto usoo diyaargarow hadday tahay lug hadday tahay madax kolley dabiib waa wax barwaaqa ah waa waxaad adiga lafahaaga la jeclaysatay ama qof aad daryeesho qof aad ka naxdo ama ehelkaaga ama mas-uulka tahay ama awlaad haddaad haysato ilaahay ku siiyey aad la jeclaato oo isdabiib ah amaba sida dadweynaha aan ka arka badi
lafahooda maasha allah waxay la jeclaadeen. marka maasha allah khayr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina. dabiibka waxaa kasoo geli kartaa adduunka darfihiisa meesha jeceshahay oo dhan, meesha joogtid oo dhan aa kasoo geli kartaa. waxyaabaha aan ka hadlaayo raalli ahaada soomaaliga hadduu yaro lexlexdo, waxyaabaha aan ka hadlaa haddaa heli kartidna doono, haddaadan heli karin iska baro. laakiin ogaada mar walba waxaa la yidhaahdaa ama aniguba aan halqabsi ka dhigay oon idinku dhahaa ubixii la waraabiyo waa nuuraa. caafimaadkuna waa saas, runta haddaa isku sheegna waa qofkii wax fiican cuno oo cabo oo ku ceesho ilaahay hadduu daawo ugu daro qofku waa nuura. yahe marka amuurta khayr allaha ka dhigo oo allaha nooga dhiga dhammaanteen. aan isi soo dhaweyno, haddaa nagu cusub tahay soo dhawow. halkan waa meel waraab, waa lees waraabiyaa. waraabkaasuna maaha cunto leh, fikradda xataa waraabkay ka mid tahay. ducada markastoo qadka soo galo aan isku soo kabno, aamiin yaa rabbi. ii warrama dhammaantiin marka. I hope inaa markasta in yar isii barataan, in yar inaa sii barano, iswaraabiska, isnafaqaynta, isdabiibka inaa sii barataan insha allah. amuurta khayr allaha nooga dhigo. aniga waxaan jeclahay markaa i dhegaysanaysid inaa fariisatid ama inaad nasanaysid. haddii aadan fariisan karin xataa oo aad socoto, xariga dhagaha inaad gashato. waxyaabahan laguu sheegaa waa waano, waa wax maasha allah naftaada lagu soo kordhinayo. marka adigan inaad dhinacaada maasha allah ka tiraadid kelmadii aan gafo bal iyo caawiyo ila kab maasha allah. waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inaan waxay ku habbooneed inaan ka yara leexleexdo. marka adaa i fahmaye insha allah waxa waaye isoo yara kab. khayr allah ku siiyo. si bood aada fara badanaa idinku qabaa oo dhiiragelin iyo isku duceyn ah. marka khayr allah idisii waa idinkaga mahadhayaa. jazaaka allah. hal maaha laba maaha, dadku kun maaha laba maaha, waa kumanaan dadka aan mar walba uga mahad celiyo dadaalka ay la dadaalaysaan iyo khayrka ay la jeceshihiin. amshuur haddaa maanta xoogaa yara si noqoto arrinka inaad iisoo yaacaysaan oo leedihiin yaa sorry maama say wax u jiraan. marka thank you. anigana markaa kuu imaado wax leen jeclaa inaan kula xalliyo insha allahu khayr. nuurka allaha kuu saaro, waxaa cuntid iyo waxaa cabtid allahana kuu sahlo. dad badan oo dadaalaya ila soo xiriiro, wax wanaagsan maanta isku dabiibay, cunay cabay, ilaahayna ugu mahad celinayo. saaxiibtinimada naga dhexaysana ay u suurta gelisay inay naftooda usoo jeestaan. marka maasha allah waayahe wuxuu alla noo sahlay ka mid tahay firfircoonidaada, farxadaada, waxyaabaha wanaagsan ood qoranaysid oo dabiibka aad ka heshay, su-aalaha aad isweydiinaysid, dhiiragelinta aad heshay, ama maaragta qur-aan isku aqri allah kuu aqbalo, ama dhakhtar u tag wax khayr la allah kaala kulmiyo, amaba adigaba isdabiib. marka wax badan haddaa fahantay maasha allah ilaaha nuurka kuu saaray. waana ku faraxsanay haddaad maanta channelka timid iyo haddaad sanado ku xirneed iyo haddaad meelo kale nooga xiran tahayba. khayr allah kusii soo dhawow. saa idiin sheega waaye insha allah qofka markuu wixii qorto adigaa hantiday, hantidaaday noqoto maasha allah. wixii markaa intaa iska dhageysata ah ka tagtana waa kaa hoos bixi karaan, waa kala iloobi kartaa. waxaaba laga yaabaa inaad xataa tiraahdo wixii maxay ahaayeen, videogii muxuu ahaa. way videogu waa dheeryahay, nuso saac oo soconaa ama ka badan oo soconaa. marka hal kelmad ama hal cunto ama hal dawo oo ku dhex jirto aa laga yaabaa inay kaa fakato. marka haddii xataa saas ay dhacdo oo videoga dheeryahay, mar kale aad jeclaysato inaad videoga dib u dhagaysato ood wixii ka dhex qorato videoga qaad, qofaa jeceshahay ku sheer garayso qadkiisa sowna kaaga dhumin. haddaad doonto aniga nambarada laga helo kusoo tuuro. dad badanaa arkaa videoyo ani aan leeyahay ugu soo tuuray. dhowr qofood markaa aan dhahay okay miyaa xaalka see waa maama video arkaa, no mama don't worry agtaada dhiganaya maasha allah. marka saasna haddaa samaysid oo videoga sowna kaaga dhumin, meel kaloo dhigta aada weyday inta soo dhigo. haddaad doonto nambarada laga helo kusoo sheer garee. yahe waxaa laga yaabaa inaan anigu aan hadda kaa aamuso because dad badan waxaa arkaa wax igu sheer garaysto oo aan haysan nambar kale ay leeyihiin ay ku sheer garaystaan. marka haddaa laba nambar samaysan kartidna samayso, saa midna ideyada u dhigato iyo fikradaha iyo cuntooyinka iyo dawooyinka, midna noloshaada caadiga aad kula mushaahdo oo ku haysato haddaad heli karta waayahe. marka waa ku kaasaa insha allah maadaama aad system dabiib aa ku jirtid. khayr allah ku siiyo. wixii waxtar leh qoro baro insha allah, dabagal haddii aad awoodo.
marka channelkan waa channel dabiib kusoo dhawaada waa dabiib iyo dadaal fiidiyoyadooda wuu soo badan doonaa ama fiidiyoyadiisa shalaysay way soo badan doonaan insha allah maadaama walaalo badan aan dhahay taga xagga wixii caafimaadka quseeyo intay ka bixi doonaan wixii talooyina ama arrimaha kale xaal adduunyaani maamuwaanay nooga bixi doonaan iyo channelka saaxiibada qaaliga ee youtube marka ii soo dhawaada khayr badan iyo farxad la soo dhawaada positive feeling ama feelingka wacan aad u wanaagsan yahay waayo qofka markuu happy yahay wax waa fahmi karaa laakiin hadduu qofku yara xanaaqsan yahay waxba ma fahmi karo marka dhinaca farxadda allaha noo kordhiyo anigu ma dhahay qasab waa qof walba ha farxo laakiin waa idin weydiistaa please farax soo dhawow nala fariiso just enjoy yourself meelo kale haddaa tagtani insha allah maqsuud noqo maqsuudnimada naftirkeedaaba nasiib lagu helaa sida caafimaadkaba uu nasiib u yahay qofka oo happy ah mana ku xirna rag iyo dumar ya ninna wuu noqon karaa qof problem badan gabarna way noqon kartaa marka waa wax amar ah ee ilaahay aan weydiisano dhinaceena wanaagsan inay nolosheena ku mushaahdo ama aan ku mushaaxno ama aan nolosheena ku dhaqanno marka soo dhawow insha allah haddaad fadhidane fadhi wanaagsan nasasho wanaagsan haddaad socotay haddaad dan kala qabanaysay haddaad gaari wada meel allaale meeshaad joogtidba sakankan meeshaa ku sugan tahay kheyr allaha kaaga dhigo qanaacala allaha keeno waa muhiim naftu inay qanaaca haysato adduunyada way farqo badan tahay noloshuna waxay martaa qisooyin badan marka caafimaadka markii qiso laga marayo saan u farqiyo badan tahay maxaa u malaynaya nolosha kale markii wax laga tabanayo aad ayay u farqo badan tahay nolosha marka annagana dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan allaha naga dhigo dhammaanteenba saaxiibada qaaligayo halkan waa meel dabiib channelkan qaas ahaan haddaa xataa channel kala jooga barnaamijka aan daadihinaya intaa iskale waayo barnaamijka privateka oo dadku ballansadaana la yiraahdaa dabiib iyo dadaal marka lays dabiibayane wax badanaa laga hadlaa tanasulaa la rabaa markaad wax xallinaysana waxaa ku faraxdaa la rabaa insha allah allahna siiyo hadday tahay madax hadday tahay lug waxaan ku faraxno allahna siiyo iji haddii lagaa qabto iji hadday ciladu ka dhacdo fungus uu galo qofku waa tabanaa ma socon karo cijadan waa idhibee sokiska ama sigsaanta haddaan gashto waa idhibe uu leeyahay qofku marka qofka muxuu raadinaa inuu korkiisa dhan wada qurux badnaado sidii ubixi ee cijadaasna caafimaad hesho maxaa u malaynaya iyadoo cilado kale la tabanaa jirka gudihiisa qalbigiisa korkiisa maxaa u malaynaya sheekadu waa badan tahay allah barakeeye marka dabiibku waa wax rabo isnafaqayn lagu xub dhacsado maanta hadday cilado maqaarka ka taagan tahay waa cilad gudaha ka taagan gudaha markaa ka xub dhacsato oo qashinka iyo dacarta iyo aad ka saarto korkaaga oo dhiigaagu nadiif noqdo insha allah jirkaaga isbedel uu keenaa marka gabdho badan iyo wiilal badan iyo dad badan ay igu xiran inkastoo wiilow ha ila soo xiriirin aan dhahay hase yeeshee qoraalay iska soo diraan qaar waa idi salaamaa waxyaabaha aan aad uga helay oon aniguna hadda idiin salaamayo oo shout outka idiin siinayo waxaa kamid ah kheyr allah idin siiyo mahad celinta ilaahay bay mahad u sugnaatay ood leedihiin maamuwaano markaan isbedelay caafimaadaan dareemay farxadaan dareemay caradiyaa yaraatay micno badanaa fahmay aad waxaan u daneeyaa wax kastoo farxad laga helaa marka alxamdulilah dadka qaaraa marmar waxay dhahaan maamoy anigu sariiraanba saarnaa hadda rajadeydii kor usoo kacday qaarkood waxay leeyihiin qaliina ii balansanaa waa ka baaqday qaar waxay leeyihiin waxyaabo badan oo nafteeda u baahneedaan fahmi marka waa ku faraxsana inaan idiin adeego adigana ogowahay ilaahay baa kuu sahlay channelka ilaahay baa kuu sahlay inaad waanada dhagaysato ilaaha kuu saqiray inaad wax nafaqo leh barato qorato doonato dabadeedna isku dabiibto una sugto waqti waayo cimrigaaga hadduu jiro 30 20 40 intaa jirtid intaasaad cunto soomaali kusoo dhex jirtay ama intaasaa buuqii qayle ku jirtay intaasaa walwali walbahaar ku jirtay nolosha qaadee dhig ay ahayd laakiin haddaad boos uga banaysay naftaada marka thank you so much ilaaha kuu baneeyay ilaaha ku siiyey
marka ana waa ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin inta i dhagaysato dhan waa idin salaamaa kheyr allah idin siiyo tahniyadaad aniga ii soo celisayna ana idii soo celiyey waayo mahad ilaahay bay u sugnaatay laga yaabo waxaan aniga nafahayga u qabsan karin inaa adiga maanta u qabsanaysid marka waa maasha allah inaan ka biisiyo baa dhici karta inaan xina yar marsado inaan wax yar samaysto inaan yaraa hurdo oon xoogaa naab sameeyo hurdada ku noqdo beriyaan ku noqon jira hurdada waxaa laga yaabaa haddana saan saaka usoo kaxay caawaleyd inaan ku seexdo waayo biisi ana hawshiyaa badan allaha barakeeye marka adi haddaad ku yaro noqoto maasha allah haddaa isyaro qurxiso maasha allah aan ku dhahaa dadaalka maanta kaa muuqdo waana ku faraxsanahay inaa adinka faraxsan tihiin kheyr allah idin siiyo allahana idiin sahlo wax kheyr leh ani hadday noqoto inaan ku adeegane allaha iisoo dhiibo aamiin ya rabbi naftoo habiya oo qanacsan waa horta maasha allah in loo dhaho maasha allah inta qanacsan ee noloshooda ku qanacsan alxamdulilah mahad ilaahay bay u sugnaatay waxyaabaha ugu adagay nolosha ka mid tahay inuu qofku qanco isma naqaano sometimes gabar iyo sawjkeeda isma yaqaanaan sawjiyo xaaskiisana isma yaqaanaan aqoonista laguu sheegaa ma aha middan lays yaqaanee xaas nolol la yahay dabeecadda runtaa waa waxqabadka runkaa baaranimada runtaa xaasinimada akhlaaq darada waxyaabaha dadka ee maaragtay isla macaamilaan markaa fariisatid oo nasatid xataa waxaa laga yaabaa inaad naftaada ogaatid inaad yaro dhib badan tahay iyo inaad ogaatid inaad baari tahay haddaad lazy tahay way kuu soo baxee iyo haddaad active tahay marka dabiibku wax badanoo ku tutusaa waayo waxa aniga idiin sheegaa waa lecture waa waanaduna iftiinka allaha noogu saaree waxbay kuu ifidaan marka waxay noo ifinayso wax kheyrla allaha ka dhigo saa idiin sheegaba anigu badi dumarka leen la hadlaa oon la shaqeeya ragna laga yaaba inay i dhageystaan waayo waxaan ka arkaa kumanada privateka ay soo dhigayaan ay leeyihiin maama waxaasaan ka faa'iiday meesha aadaa idiin salaamaa meel walbo adduunka joogtaan kheyr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiina nambarada hortiina yaala waa kuwa dabiibka laga ballansado oo laygala soo xiriiro laakiin waxaan joojiyey qoraal yaroo lasoo diro ama toos laysoo waco waa joojiyey nambarka haddaa xaraysato whatsappkiisa aad soo hesho cod soo duub waxaa tiraa maamo hiblaayaa lay dhahaa saa idiin sheegaba ani rag lama hadlo ama lama shaqeeyo maadaama aan la shaqeynin lamaba hadlo marka gabar leen la hadlaa gabadhii tiraada hiblaayaa la dhahaa halkaasaan joogaa maama dhibkaasaan ka cabana ballan inaan dhigtaa rabaa meeqaa qaadataa meeqaa ku shaqaysaa waa kuu soo jawaabaa hadday noqoto inaa is afgarano insha allah kulaba shaqayn doone waa xilliga hadda taagan laga yaabo dhowr sano kabacdi inaad videogan dhageysatid allahu yaclam intuu darbiga youtube saarnaan doono haddaa isoo raadisidna wax la noqon doono allaa og laakiin ogow qofkii igu xiran oo subscribe saarto inaan upload sameyna oo shaqeyna oon hadlaa waa dareemi kartaa soo markuu videoga kuu soo dhaco qadka soo galo miis maantaan sameeyey ama xalaan sameeyey waqtigan kusoo geliyaan waaye hadduu kuu soo dhacay marka beelka qofkii taabto subscribe saarto wixii joogto loo soo geliyo oo dabiib iyo dadaal quseeyo adiguna waa helaysaa marka insha allah haddaad inta ka faa'iidane allah kuu barakeeyo haddii aniga si private intaa ii ballansata aan kuu faa'iideeyane allah kuu barakeeyo buugaaga iyo qalinkaaga mar walba hayso insha allahu kheyr ii soo dhawaada oo noo soo dhawaada waxyaabaha qaarkood oo idii tilmaamo waxaa kamid a meel kalena ka faa'iideyso maaha ani kaligeele inaa igu xirnaato meelo badan ka faa'iideyso waayo aqligu waa wax koraayo maalin walba aqli cusubaa lagaa filanaa inuu kugu soo kordho luuqado kale inaad taqaanaa laga yaabaa luuqadii af soomaaliga afkoos waa taqaanaa allah kuu barakeeyo waxaa taqaanid luuqadahaas kalena kaga faa'iideyso sidoo kale haddaa tahay qof cilad xanuun dareemay buug la-aan ha ahaanin 10 jeer haddaa idiin sheegay waa ku soo celinaa buug la-aan ha ahaanin maanta xirfad kasta aaladaa lagala soo baxaa kombyuutarkaa lagala soo baxaa internetkaa lagala soo baxaa qof nool intaan ka ahaynbo halkaasay yaalaan dadkoo nool xataa waa loogu tagaa maanta dadku intay iska ballansadaan aaladay iska ballansadaan laakiin wax walba maanta aaladaa laga gataa marka hadday noqoto waxaan kuu tilmaamo dib aalada ugu celi insha allah halkaasaa ka gadan kartaa insha allah ama aa ka dhex raadi kartaa informationkeeda maasha allah maanta waxaa la taagan yahay 7 shaygii kor loo qaadaba waxtarkiisa la ogaan karo
shaygii kor loo qaado oo wax la cunaa waxtarkiisa aad ogtaa. marka waxtarkii unbaana wado waa ugu leexane. haddaa maanta soo dhigo qudaar yar waxtarkeedii haddaa fahantay ku leexo. yaa waayo cidda naashnaashka iyo quruxda loo rabo? waa adiga. qofka raba inuu ka bogsoodo cilad caafimaad darro oo durdurka oo u socdo waayo waa adiga. inta kula midoo meesha fadhida warka dhageysanaysana waa same. fikraday raadinaan, farxaday raadinaan, nafaqay raadinaan, faakahaysiga naftay raadinaan. marka lecturekan dhiirigelinta caafimaadka ah wuxuu ku socdaa qofkii nala fadhiisto oo inoo saaxiiba oo raba inuu mar walba wax fahmo. marka nuurka allah noo saaro, adeegana mid fudud allah ka dhigo, aamiin yaa rabbi. dabiib iyo dadaal marka waa durdur. ilaa cilad ay dhacdo durdurka joogsado waa wax kuu soconayo. haddaad ka caajistid ciladaa dhacday, haddaad neerfis noqoto ciladaa dhacday. haddaadan heli karin sabar allah ku siiyo, allah kuu sahlo. wixii la sheego farta lagu fiiqaba lacag waa. marka bal marka hore wax fahan say wax kaa yihiin fiiri. ogow waa la gaboobaa. marka la gaboobana waa la isbedelaa. 20 sano markaa jirta saa u nuuraysid oo jawjaw u tahay 40 muu ahaanaysid. 40 saa jawjaw u tahayna 60 muu ahaanaysid. 60 saad weli xay u too isku haysatana 80 muu ahaanaysid. marka cimriga waa durga. ogow ilmo yar oo hadda la dhalay iyo qof 20 jirana isku nuur maaha. inkastoo 20 jirka weli nuuraayo waxa kasii nuuraayo ilmaha hadda hooyadiis ee umushay ee beebiga ah. soo qiyaas adiguba waqtiyaa socdo. markastoo sii weynaatidni waxaad fahmi kartaa hadduu ilaahay nuurka kuu saaro isbedel inuu jirkaada ku yimid oo naashnaasha ah u baahan tahay. dumarka inta badan daneeyo waxyaabaha laysku nuuriyo. furuud yar hadday tahay, mirooyinka nafaqada lagu sheegay hadday tahay, bowdhar hadday tahay, kaniin hadday dumarkaa wax walba raadiyo. saliid la marsada hadday tahay dumarkaa daneeyo. hadda marka rag badan ayaa waxay dhahaan raggana ma isticmaali. waagi hore waxay dhihi jireen raggana ma isticmaali karaan. of course raggana waa isticmaali karaan. waa hadduu asiga joojiyo, hadduu asiga u cag joojiyo ninka ragga ah wax walba u isticmaali karaa. gabadhi timaha markay shalaysato ninkuna timihiisa wuu shalaysan karaa. hadday qubaysato of course asna waa laga rabaa. hadday nasatay seexato asna waa laga rabaa. amiin ragga iyo dumarka waa same. asba waa noole. hadduunan keer isi siino wax nafaqa la cunin oo miraha wanaagsan cabin oo jarjaran oo cunin oo jeclaysanin inuu cuno den way ka dhamaane. sida gabdhaha uga dhamaato oo calaacalkeena aad hadda u dareenteen janalan joognaba ayay raggana uga dhamaatay. yaase sheegaa ragga? yaa sheegaa miraha u roon, nafaqada u roon, maaragtay ciladaha la kulmay, dhinacyadu ka gaabiyey, maaragtay dhibaatooyinka ka haysta nolosha, qaybta dabeecadda, qaybta caafimaadka, qaybta tabarta iyo xayiga. raggaba waa same. raggaba waxbay la kulmaan. marka meeshaan rag iyo dumar kale ma laha. fadlan dhegeyso. naashnaash iyo wax wanaagsan haddaa rabtid nala jaan qaad. waayo sidaad adigaba u rabtid ayaa insha allah annagana u rabnaa. laakiin aniga dumarkan u shaqeeyaho aan isleeyahay bal durdurkaas ha ka cabaano oo maaragtay caafimaadkooda ha usoo jeestaano, miraha wanaagsan ha bartaano, hormoonkooda ha bartaano, ha sabraano. marka ogow gabaray adiguna bal sii sawjkaaga haddaad xaas tahay waxaad shiidatay wax ka sii. midda kale waxaad ugu xilatayne laga yaabay ani gabdho badan waxay ugu dhaheen ani maba aqaanaba aaladda isi information loogala soo baxo. odagayga markaan waxaan tusay hadduu sii raadiyey waxtarkoodii uu soo saaray. hadda asaaba noo soo adeegaba oo iga daba wadoo dhahayo aan isku shiidanay sug anaa mid khatara maanta nooga soo tuuraaye. maasha allah maasha allah. waayo rag laga yaaba inay xagga aqoonta xataa nooga badan yihiin. hadday wiilasheena fahmi lahaayeen sida ragga cadaanka iyo madooga iyo dadyooga kale ajnabiga asianka ay waxaan u tabcadeen ayay raggeenana uga tabcan lahaayeen. yaa u diiday ninka soomaaliyeed bal inuu ismuudigiisa cabo, inuu maaragtay cunto yaroo wacan oo wanaagsan cuno? yaa u diiday? cidna. laakiin wuunan aqoon u lahayn. marka insha allah dabiib iyo dadaal haddaa wax ka fahantaan ilaahay daawaadii kugu daro. miro walba aamiin yaa rabbi. miro walba micnay leeyihiin, magacuu leeyahay, fitamiinoo wataa, qayb ka mida noloshaada wanaajin lahaa haddaad cuntood heshood haleesho. marka sida la iskugu dadarsado wuxuu ka kooban yahay magaciisa, daawadiisa waa laguu sheegaa intii laguu sheegi karo ee soo dhawow. dushaan waxaan uga soo dhacnaa
indhaha xanuuna, dhagaha xanuuna, ilkaha xanuuna, cirridka xanuuna. marka haddaad taqaanid ood qoratay cuntooyinka u fiican ciladaha jirka qabsado waa isku fiirsan leed sooma. ani waxaan idin dhahay isku fiirso. qofka buko waa qof gudaha ka balalsan. waxa u roonne haddowna garanaynin wuxuu la wareegaystaa waa bukaa waa bukaa waa bukaa. marka qofkii nafaqooyinka waqti siiyey maasha allah waa ka boodaa because waa kala baratay wixii kuu roonayaa raadsanaysaa. aad iyo aad iyo aad iyo aadaa u salaamaa walaalaha jecel wixii waxtar leh, walaalaha jecel insha allah inay iswaraabiyaan. waraabka laguu sheegaa waxawaa wixii wax roon qofkii baranaa waa farxa. sidii hadda gabdhaha igu soo riboodeen ay dhahaan maam waana sawjkeyga waa happy. saa aniga u fahansanaya micnaha dabiibka uu asna u fahmay. waxaan cunaahu ila cunaa, wuxuu cunaahu wanaagsanaan la cunaa. labadeenaba subscribe aan kula nahay. gabdhaha qaar ay dhahaan markuu videoga soo dhaco anigu haddaan busy ahay sawjkeyga ay dhaho hay maamadii video soo dhigtay bal soo yara dhageyso. hadduu asiga busy yahay anuu yiraahdaa maanta maxaa yaa dhir ah oo wanaagsan oo maamadii aan ka baranaya keentay. qaarkood isla markii intaan usoo helo aan u diraa suuqa hore uga soo gadaa hore noogu keenaa. amiin waxaasoo dhan waa duco maasha allah. ani kolleysaa u arko waa farxad waana duco waana khayr. marka allaha idinla garab galo dabiibka, allaha nuurka noo saaro dabiibka, allaha noo fududeeya dabiibka. dan kasta oo aad leedahay oo khayrana allaha ku siiyo. waa ku faraxsanahay inaad saaxiib ila tahay. ubaxaan la waraabin ma nuuraa layiri. khayrka inaad ku waraabto waa jeclahay. naftaadii noloshaadana inaad ogaatid waa wax fiican. cilado badan aan kala kulanay nolosha, caafimaad darro ah, dhiiggii dhimirkaba raacday. allaha caafimaad dabadeedna siiyo insha allah. dad badan oo dadka dhiirigeliyana allaha keeno. message haddaa ii hayso oo aad la jeclaa laheyd inay gabdhaha guruubyada fadhiyaan ay dhageystaan dadaalkaaga ah meeshaa joogtid goorkaa bilowday inaa isbedeshay waxa aad ka faa'iida maamuwaano iyo brograamada iyo youtube-ka ka wado waa dhihi kartaa anigoo heblaaya halkaasaan joogaa. dhammaantiina khayrka idinla jeclahay. ciladaasaa ilaahay caafimaad iga siiyey. hala dadaalo oo hala dulqaato. waxaasna waa isticmaala ilaahaa daawo iigu daray. inkastoo dadaalkaaga inuu badan yahay aniga aan aaminsanahay. hadda xataa in yar aad dadaashid qalbiyan qofku markuu xasil noqdo dadaalkaas waa mid baaxad weyn. waayo qofkii wanaagsan unbaa message qurux badan adna kula jecel. marka anigana waa idiin duceynaa duco bad iyo buur la egaan walaa idinla jeclaa bad iyo balli. sababta oo ah qofkan dadaalayo ilaahay markuu la garab galo ayuu gaari karaa guushiisa. marka farxadda qoyska waa meesheedii, caafimaadkaaga waa meeshiisii, understandingkaaga iyo maaragtay fikradahaada quruxda badan leh iyo saa u aqbasha isku roonaashada waa meesheedii. allaha kuugu daro wixii la sheego khayr inaad gadan karto, inaad maaragtay naftaadii yaa waxaa layidhi aqoon darra keligeeda waxaa layidhi abaar guureysa way ka daran tahay. marka haddaa aqoon leedahay oo wixii roonba aa isku duduwatay intaad cuntay cabtay ilaahay caafimaad kuugu daray lama soo koobi kara khayraadkeedii. saasay tahayna ogow qofay barasho u socotaa tahay. miro walba dawo walba wax walba barashay rabtaa. marka aniga raaligelin leh waxaa idii wado inaan idin dhaho bal halaysdejiyo insha allah. u dulqaada cilada aad dareemaysid. nafta bal koolkooli quruxso isbedel amuurta khayr allah kaaga dhigo. waa la gaari karaa muraadkaaga laakiin ilaahay in la baryo waa. qof walba hadduu ilaahay baryo heer waa la gaaraa. inta badan gabdhuhu waxay ku dhagaan ugxaanta. insha allah ugxaanta kobcinay rabtaa. kobcintina hadda waa sida ubixi. sawjkaaga haddaa xaas tahay saboodaa ka rabtaa, ducadiyaa ka rabtaa, dhaqaalaa ka rabtaa, garabsiinaa ka rabtaa, dhiirigelin badanaa ka rabtaa. haddaadan sawj haysanood gabar kaliya tahay ama gabar madax banaanaa tahayna adigiyaa iskaga baahan sibood. marka inaan kuugu soo celceliyo seetaan fiican tahay soo dhawow saaxiibada ka mid noqo waxaan cun waxaan cab waa u baahan tahay. ilaahay dadkaaga wax khayr laha kaa siiyo. haddaad ducaysato insha allah allaha naga sii dhammaanteenbo. haddaad ducaysato wax badana isbedelaa. cuntooyinkaad aragtaan dadaa cuno soomaaliya noocay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay xilliyada la cuno wixiiba waa loo sheegay. khayr allah siiya dadaa mar walba waxay ku duceeyaan khayr allah siiya maamadiina bartay mirahan, maamadiina bartay cuntadan, maamadiina bartay maaragtay badarkan, maamadiina bartay talooyinkan. waxaasoo dhan waxay ugu soo celcelinayaan
khayr allaha siiye ayagana inay arkeen wixii waxtar leh. marka allaha nuurka kuu saaro, adigana dadaal, allaha nuurka noo saaro dhammaanteen. fadlan waxaad rabta waxtar la qoro. midda kale arrimaha qoyskaaga waa wax khayr badan, waa imtixaanka adduunka ku yimid wax walbe. reerkana waa ku imaan karaa, guurkuu ku imaan karaa, owlaaduu ku imaan karaa. marka fariiso, isla tasho, isweydii xaggee cilad ka jirta. hadday cilad ku haysata xaggee kaaga timid. ilaahayna ula noqo, uu ku daalacanaa, waa qafuur raxiim. allaha weydiisa subxaana qaadirka inuu kuu qafiifiyo waxaad qalbiyan dareemaysid. hadday wax fiican tahay waxaad dareemaysidna ilaahay ula noqo, ilaahay ugu mahadi. anigu waa kuu sheegaa un habaryartaan samayso, cuntada noocaan cun, isnaashnaashkaaday ka mid tahay iyo isqurxintaada insha allah. haddaad intaad cunto wacan oo wanaagsan raadsato oo noqoto qof dabiibka u daacada, ilaahayna uu kuugu daro daawo, markaas waa markay fitamiinaadka ku gaarayaan. jirku fitamiinaad badan uu rabaa, kala nooc uu rabaa. ugxaanaa kobci weysay gabdhihii dhaheen. ugxaanta waxaa laga yaabaa nafaqo fara badanaa kaa maqan. haye biyihii sawjkaa lagu dhagay gabdhaha qaar ee xaaska ah, asigana insha allah maybe nafaqaa ka maqan, taas waayo la ordi karin, maybe taas waayo gudaha damage uga yihiin. marka maxaa ku dhacay? waa dhammaatay. haddaan dusha uga soo dhacno wixii u roonayna aanan rabin inaan dhageysano oo waa baaba'da le problemkeeda aan dhafoorada la qabsano, hadda sheekadaas waxay noqon kartaa sheeko adiga kugu eg. ayada inaad dayro meel la fadhiisatay inaad dadaasho wax ka dhexeeya male. waayo gabdho badan waxaan aragnaa maasha allah ilaahay ugxaantii la kobciyey. haye annaga xataa hadday wax naga faa'iiday, iyadana ilaahaa nuurka ugu daray. markay cuntay cabtay ayaa ilaahay nuurka ugu daray wixii. laakiin iskoolkoolisaa la rabaa. ilaahay daawaha kuugu daro, qof walba wax tabanayan ilaahay khayr ha siiyo. marka dayradaasna waa dayro aad iyo aad iyo aad noo wada damaqday. gabdhaha ugxaantii ka dhammaatay ama aan kobci karin ama la yiri damage waa gudaheeda. marka dadaal, nin walba wuxuu cuno ciidamiyaa been maaha. badar fiican cun, muddana sabar. da'daadaa lagu yiri 10 sano oo cimrigaaga, 1 sano oo daacad u tahay uu rabaa dabiibka. daacadda waxaa ka mid ah insha allah on time inaad wax ku cunto, xilli go-an inaad cuntada ku cunto, aad cuntida inaad superfood cuntid. cuntada superfoodka lagu leeyahay waa cunto fitamiinaad wadato. marka uur qaadistii ayaantan halisaa ku dhacday, hakadaa ku dhacay, waayo waraabkiyaa yaraaday. farxaddu waa waraab, hurdadu waa waraab, cuntadu waa waraab, dadaalka iyo jimicsiga waa waraab. yaas da'dii waa socotaa, laakiin waraabkina waa yaraaday. runtaa idiin sheegaa, waxyaabaha dadka loo sheegaa markay ballansadaan oo dabiibka ballansadaan waa un iswaraabi. waa wixii kuu roon iyo insha allah xilliga ay kuu roon tahay. marka xub dhacsiga ama isnadiifinta gudaha oo qashinka laga saaraa dadaalow rabaa, dulqaadow rabaa, barashow rabaa, even inaad gadato wax waxtar laa la rabaa. insha allah dabiib iyo dadaal marka waa kaa. hadduu janalkiisa kugu yimaadana waa ka, sida privateka haddaan u wada hadlaynood ballan dhigatane waa ku kaasaa. saan un baan u sheekaysanaynaa, adigu cindigaaga marka la kaasho. ani maadaamaan garanayno waxa kaa qaldan, cilad lagugu sheegay, ma buraa, ma xaggaa, ma tayrooda, ma macaana, ma kolestarola, ma cayila, ma caata, ma da' socotaya, gadaalka gaar leh nab hadda inaad nafaqada siisata haddaa rabto. habarhee ubixii la waraabi waa nuuraa, kii la dayacana waa qalalaa. yaahe qofkii buuran oo xaya waxaa laga yaabaa dhiig la-aan inuu la liito, dhaguhuba qayliyayaan. marka ubixii qalalay ha noqonine isku soo jeeso. nin ragaadaa tahay oo ciladahan oo kale lagugu sheegay, in adeero fadhiga ka kac, maamo fadhiga ka kac, khayr allah ku siiyo. gabar haddaa tahayna sidoo kale abareer fadhiga ka kac, khayr allah ku siiyo insha allah. naftaada ogow yaahe kala fiican wax la waraabiyey oo nafaqo la siiyey iyo wax la dayacay. marka kusoo dhawaada janalkeena dabiib iyo dadaal, meel walbo adduunka ka joogtaan. waa tala bixin talawaatii ilaahay, dhiiragelin caafimaad. khayr allah idin siiyo. aniga idiin adeego oo maamuwaana. dad badan ayaa anigana isiboodo, ducada igu siboodo, dhiiragelinta igu siboodo, mar walba iisoo aqbaar waramo oo idhaho waxaas waa ka caafimaaday, saas ayuu xaalkeyga yahay, guusha ilaahay waa i gaarsiiye, iisoo ducee ilaahay inuu saa iigu wado. marka waa ku faraxsanahay, laakiin hadallada aniga ila yaalo waa private.
adigase waxaan kuu sheegaa wixii hagaagay haddaad doonanaysid adigana khayr allaha siisaa idiin sheegay gabdhaha iswaraabiyo haddii aad rabtaan macal wiilaysha dadaalo cod waa soo duubi kartaa aad leedahay maamuwaane waa kuu fasaxay anaana afkayga uga sheeganayo in laysdabiibana waa qabaa ciladaas iyo ciladaas ayaan ilaahay iga caafimaadiyey markaan dadaalay waxyaabaha qaar ay gabdhaha ii sheegaan waa isbedelka quruxdooda iyo timahooda ay dhahaan maamooy hadda ilaahay baa iiga gargaara arrinkaas waayo wax badan ayay intay igala tashteen ayaa maasha allah talawaatii ilaahay qorashada aanu tilmaamay ayaguna ay bilaabeen inay qortaan cunaan cabaan ilaahayna caafimaad ugu dira maantana sheekadooda farxaday ku biishubatay so waa maasha allah nin walba wuxuu cuno ciidamiyaa layiri dhirta nafaqay xambaarsan tahay fruutka iyo qudaaraha kulli nafaqay xambaarsan yihiin marka hala cuno hala cabo caafimaad ilaahay kuu ugu daran allah naga dhigo haye waa kasii biibaa saaxiibadii aan jeclaayo waa inoo iyo mar kale iyo dhiirigelin kale oo caafimaad dabiibi dadaal kusoo dhawaada I love you kulligiin waa idin jeclahay meel walbo adduunka ka joogtiin ilaahay idin kaalmeeyo khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiina haddaad anaga saaxiib nala tahay qaas ahaan channelkan aad fadhido meel walbood adduunka ka joogtid waa qaybtii dhiirigelinta caafimaadka ee dabiib iyo dadaal dhammaantiin saas ogaada dhammaanta asxaabta qaaliga dhammaanteen aan saas ogaano inta waa qaybtii cuntooyinka iyo dhiirigelinta isnaashnaashka laga baranaa ee YouTube ee maamuwaano iyo asxaabta qaaliga dabiib iyo dadaal liiraa channelkan qofkii ku cusub soo dhawo welcome haddaa suulka kor ugu soo taagto waa jeclaan lahaa haya caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi dhammaanteenba wabarakaatu